muuqaalkana wuxuu ku bilowday wiil yar oo Elliot lagu magacaabo kaasona abitaydiisa kula ciyaaraya meel banaana bashalkaskiisaas laga joojinaya kadib abitaydiisii oo ka gashay god weyna oo xaggaas ku yaalay waana mid soo aaday dhinacaasi u soo ceshto abitaydiisa irdii godkii weynaas uu gil rabay caruur yaryar oo deegaanka ahaa uga digayaan meeshan uu gil raba halis weyn inay tahay wax aanan la aqoonin ku nool yihiin waas mid hadalkooda aanan dhegeysanin gudihiina uu soo galay socodkiisana gudan meel kastoo ka mid a laga maqlaayo raadisnaan abitaydiisa mar dambase uu arkay isagoo damcaya inuu soo qabto gacan meelay kadib daan la aqoonin dhanka wiilkana kabdhahayso hasaatee la dagaalamay kama dambeyntan uu suuro gashay inuuba ka soo baxsado gudkiyaasi uu nabad qabo isla buurahana meelaan ka fogeynin hooyadiisa Candice iyo aabiisa Joel oo deegaankan magaalada ka fog dadka reer baadiyaha ku nool yihiin u yimaaday inay gaalo u bedelaan isla maanta gabar deegaanka ahayd ku qanciyeen in diintooda ay qaadato waana kuwo u sameynayay baptism meelaan hawshoodina markay dhamaysteen ka sii tigrabeen Candice meel buur dusheeda dareemayso wax hoos camal oo taagan asriyadan waxaan dhiigama yihiin iskana soo tagtay subaxdii agtana maalinkaas Candice caruurta yariiska ee dadkan reer baadiyaha barayso luqadda Ingiriiska habeenkii maalinkaasna lamaanahan ku adeeg diintooda say dad badan u soo jiitaan diintantooda ay cunto fariiha u qaybinayaan dhinaca wiilkooda Elliot aysan u ogoleen telefoon inuu isticmaalo ubadkiisii soo xaday wuxuuna ilmeeyro caruurta telefoon wiligood arkin u keenaya ayagana la yaabiyihiin wuxuuna baraa game ku jiray sida loo ciyaaro mar dambe caruurta meesha isaga tageen Elliot kaliis ku soo haray maqlaayo cod ishiisana la dabakacay wuxuuna arkaa wax madow oo meelaha soo socdo ma dabakacda miska dhaaftaan intuu dhahayo hooyadiisa Candice imaaday kuna aragtay telefoonka gacantiisa ku jiro waxaana bilaabay inay ku qayliso wiilkan geedaha asagana uu ka raaligelinayo goortaasi ogaanaysa wiilkan hadiyad gacanta ugu xirnaa jirtay eeyadiisa hadda ka horsiisay ka maqatay gacantiisa waxayna weydiinay awday bahashii ku xirnaa jirtay isagana uu been u sheegay hooyadiis oo yiri gurigan uu uga soo tagay intaa ka bacdina wiilkan hooyadiis ku dhahay guriga ayaan aadayaa welibana keligay u ogolaatana taas hooyadiis wadadeena tuuco wadadleedna oo kaliid ku sii socday wiilkan dareemay waxayna daba socdaan waase mid iska sii watay socodkiisa isla markaasna go'aan ku gaaray gacan xirkii awgiis uu sii jiray ee maanta gudkii ku soo hilmaamay inuu doonto gudkii dhinaciisana soo aaday tooshka teleefankiisana isagoo isticmaalaya gudkii gudaha uu soo galay koorno walba oo gudkaasana waxyaabo aan caadi haynin ka soo muuqanayaan gudkana jawiisa uu bedelmay hal mar sida noolayaal meesha ka soo muuqday wiilkan ku soo dhoobteen kadibna wixii meesha ka dhacna lama tusin oo muuqaalka madow ayuu isku bedelay dhinaca kale lamaanihii gurigooda markay yimaadeen u haystaan Elliot inuu qolkiisa ku jiro iskana jiifo waana kuwa iska saacsan ayagoona taas waxba ka soo qaadeen subaxdii xigtana Candice qolka wiilkeeda soo gashay sariirtiisana ka qaaday go'ay qofna aysan joogin arkaasna ninkeeda Joel la socodsiinayso Joelna uu weydiinay xaaskiisa xalayto lamaadiga ku qaylisay mise waa tuntay xasugu jawaabisaa no isla markiina bilaabayaan inay raadiyaan Candice inay aadayso wiil yar oo Rahul yiraahdo magaciisa maadaama wiil inta badan wada ciyaari jiran uu yahay markii weydiisan Elliot maaragtay isagana dib ugu horeysay uu aamusayo markii dambe se yiri wiilkaada wuxuu galay godkii mamnuucayd in la galo subax hore iyadoona waqti badan sii lumin Candice godkaas dhinaciisa soo aadayso albaabkiisana markay soo istaagtay dabeel yar oo qabow laga horkeenayo markaas nin shaaman xaafadan ka ahaa uu Candice ugu digay godkan inaysan gelin usa sheegtay wiilkii ayaa maqan uu ku jiro ku dhahay soo dabakac aniga iyadoo kala labeynaysan soo dabakacday wuxuuna keenaa meel ka baxsaneed tuuladan dadka degan qol isaga dhan wada nooc kala ah Candicena tan xoogaa yar cabsi ay gelisay nasibanaagsi wiilkeedii Elliot oo meeshaas jiifo libana suuxsan arkayso waxaana weydiinaysaa maxaa ku dhacay wiilkeyga isagana uu u sharaxayo waxaan ka soo qaadnay isagoo ku jira godka uguna sii daray markuu caafimaadkiisa fiicnaado ama uu soo kaco ka wad meeshan godkaasna uu dhawaan mar dambe Candice amarkaaskiisa odaganaysan qaadanen wiilkeedii wili suuxsan soo xambaaratay ku sii socodkeena gurigii Candice wiilkeedii weydiinayso say wax u dhaceen oo adigu ugu dhacay isagoo uu jawaabay maama gacangashigiiga oo godka maalin hore iga soo dhacay ayaa doontay xalay man ogaanaysay wax ugu dhaceen hadalkaas intay wadeen haweeney dadka deegaanka mid ahaa Elliot aragtidiisa dhan ka cabsanayso kuna qiilinaysay iga tag kama dambeyntiina Candice wiilka waa socday maanayaan kaniisad ay ka dhisayeen meeshan isla maalinkaasna albaabada loo furayay midkoo hogaaminayna dadkeen u soo jeedinayay waxaabo Candice jawi kale ay ku jirto oo dabagad cod soo noqnoqonayana kaniisada dhexdeeda ka maqlayso dib qalloocna meelaha soo socdo markay markale ishu celisana miriq laba joogiyo waana goortaas markay ka shakisay wiilkeeda Elliot inuu xabaana mas'uul ka yahay naagtii maantana waxay arkaysaa wasax yihiin habeenkii maalkaasna Elliot oo iska jiifa kuriyoonaya shaamankii maanta oo waxyaabo isagan ku dul akhrinayo dagaal laba ay kula juriyeen subaxdii xigtana dadkii xaafadda markay soo kaceen la yaabayaan haweeneydii maalin hore wiilkan go'a weydiisay inayba iyadoo dhimatay webiga la taallo si naxariis la'aan ahna loo dilay labada lamaanuna haweeneydaas askii loo sameynaya ka qayb galayaan intaysa meeshii joogeen Candice wiilkeeda isha la raacraacayso hoosna ka dhihisay yaa isaga mas'uulka ah dilitaanka markaas Candice oo sariirteeda iska aadisay cod ka maqlaysa qolka Elliot wax kaligood dhaqdhaqaaqaya camal intay soo degdegtana qolkiisa
qolkiisa ugu soo gashay balse hor loo daaray oo sariirta ama qolka qofba kuma jirto raaditaan uu gashay isla cunugeeda martaba arkaysa isagoo duurka iska jiifo waxayna wacaysaa ninkeeda si uu caawiyo una yimid gurigiin u soo wadeen cunugan isla markiina korkiisa markay taabteen isaga dhanqaab bow uu yahay biyana u saartay debka si ay ugu qandiiriso layaabsi biyihii ayba u muuqdaan kuwa jirka Elliot badiidaayo war hay ugu taabana kanaay wiilkeedii Elliotna markiisii ugu horeysay luqad aanan la aqooninba kula hadlaayo sakana gaaban uu ku hadlana kama dambeyntii ku soo noqday Elliot-kii caadiga ahaa tennis waxaan baarin kadib keenaya sariirtiisa kanisna cunugankeeda walwaleysa weydiinayso caafimaadkaada oo keema yahay isagan ugu jawaabayo tabar la'aan ayaan dareemayaa oo aniga dhan taxbaana ahay subaxdii xigtana kanis oo banaanka ku warwarinaysa dhar ay dhaqday banaanka ku arkaysa waxyaabo shaamankii maalin hore gurigiisa tegaysay ee ku soo aragtay inayba isla gurigan yaalaan waa kooda waxayna isla markaas qiyaasaysaa in shaamankii uu mas-uulka yahay cunugankeeda dibka haysto waana mid u soo carartaba halkii odagan uu joogay una waa wacayso balse aanan loo jawaabaynin waxayna go'aansanaysaa gurigan qaabka daran inayba gudaha u gasho soo gelitaankeedina shaamankii oo balaaye akhrinayo isheeda ku arkaysa waxayna leesaa meeshaan inaa imaado maba hayn kasii tegaysana caawiyihii shaamankan uu arkaayo haweeneydan wuxuuna dhahaa meeshaan inaad soo gasho qalad ayay kuu tahay mamnuucna waa in loo soo dhawaada xitaa intaagdina gurigeeda isaga soo noqonaysay Candice wadada kula kulmaysay gabadhii maalin hore ay diintooda ka dhaadhicinayeen waxaana la tusayaa baakoor ay lahaa jirtay haweeneydii maalin hore webiga ku dhex dhimanaysay isla baakoortaasna kiniisadda ka soo dhex heshay gabadhana ku eedanayso Candice beelney inay tahay oo baakoortan qoftii iska lahayd ay diinta ay aaminsan yihiin laba inay kala yihiin maxaa loo keenay Candice dhayso taas waa dembi aan galay waana ka soo noqonaa kama dambeyntina gurigii imaaday ninkeedii Joel uu sheegayso in wax walba oo wiilkooda ku dhacaya in shaamanka mas-uul ka yahay balse Joel sheekadaas uusan waxba ka soo qaadaynin oo yiri maba aaminsanayba shaaman wax la yiraahdo subaxdii xigtana kaniisadana banaanka gurigeeda ku arkaysa caagii dhoobada ka samaysnaa waxayna umalanaysaa markale shaamankii inuu keenay balse ninkeeda ku dhahayo aniga duurka ka soo qaaday maalin hore markaa raadinayo wiilkeyga bacdeenna igoo cudurka wiilkooda hay u walwalaya inuu caafimaado ku ducaysanayaan balse Elliot-kii waxyaabahan dhan ee dhibayaan habeenkii maalinkaasna ka hor cashadii Candice miiskii cashada ku arkayso wax aad uga yaabiyey Elliot indhihiisana isbebedelayeen afkiisana uu ka soo baxay dib qallooc waana ay qeylinaysaa taasna waxay keentay cashadii in la ilaababa halkiina lagu kala orday subaxdiina oday Mayer mid liyaahdo oo aygaan la socday waxay keeneen wax walba wiilkooda heestaa iyo maalmahan afkiisa xataa waxaa madow inay ka soo baxooyaan wadaansi markuu jeekariyey wuxuu dhahayaa ama u malaynayaa in virus uu haayo Elliot balse Candice ay ka baryayso sheekada taas way ka weyn tahay waxaa qasab nagu haynaan ku samayno xoogaa yar oo ku duluuri wareeg ah shaamankiina uu wiilkeeda u malaynaysa inuu siiyey waxyaaba madow oo dareera ah hadalka haweeneydana uu maqlay inuu jugjuguyana bilaabay Elliot isagana uu caddaanayso sheekada inay tahay mid aad u xun intuu naftiisa kala baqana kadaal uga sikaaday isla Joelna oo meeshan joogay aanan aaminsanin wiilkankiisa inuu xanuunsan yahay laakiin xoogaa deegaankan uuna la qabsanin maadaama reer magaal uu yahay si kastaba ha ahaatee Candice oday Mayer ka baryayso inuu degdeg ugu sameeyo xoogaa duluur wareegsi ah waanu ku aqbalaya gurigiisana soo aada si uu u soo qaato waxyaabihiisii wadadiisa intuu kusii socday ninkii shaamanka ahaa si lama filaan ula kulmay shaamankiina uu ninkan uga digayo waxaaba uu samay rabo inuusan u dhowaanin wiilkaasna balaada ku jirto ay asigaan ka weyn tahay Elliot caafimaadkiisana aad uga sii dari doono haddii uu sameeyo anigana arrinkan ii daayiri balse oday Mayer uusan dhegaysanaynin guriga Elliot iyan u soo noqday wuxuuna bilaabaa howshiisa intuu wadana Elliot luqado fara badan oo kala duwan ku kala hadlaayo isagana uu weydiinayo su'aalo Elliotna wejiga bababadashay in daqiiqadahaas kadib howshiina socotay Elliot qolkii dhanba ka mirqiyey meel uu aada sheeg odaygaanse kama haran wuu soo daba kacay kama dambeyntiina helay wuxuuse dhahaa odaygo maxaad iga soo dodoontay waana uu weeraraaba codna uga sheegayo uu fahmayo diinta aad aaminsan tahay inba wax ka jiraa ma jiraan haddaba si kastaba haatee kama dambeyntii balaayadii ku dhex jirta Elliot ay ka baxday odaygan oo indhihiisa bannaanka yaalaana cabsi darteed intuu guriga tiin Candice uu sheegaya mar walba inay ducaystaan subax walba weliba intaa kadib si lama filaan shaymanka gurigan u yimid wuxuuna damcaya isagana inuu balaayo kala sameeyo qofka cunugan xaalkiisa caadi ka dhigarna uu yahay balse Candice diinta ay aaminsaneed iyo odaygan diinta u aaminsanaa kala ahaayeen labo aanan meel isla marin waxayna ku dhehaysaa dembi ayaan gelayaaba haddii aan adigu ku ogolaado hawshan sharaxaad dheer oo ku saabsiisana waxyaabaan cunugan ku dhex jira uu sheegay ku yidhi balaayadan ku jirto cunugan jirkiisa ayay lamaan la tahay qaab keliya oo caada dhaqameedahna looga saari karo si kastaba Candice wadnan waxyaabahaas odaygan markuu guri kasii baxayna sagsan uu lahaa Elliot meesha ka xaday habeenkii maalinkaasna oday Mayer oo wuxuu maanta arkay la jariinayay weligiisna uusan arkin wuxuu uu Elliot ku arkay gacan dhaawac ka soo gaartana uu tartiib iska
iska fiirfiirinay lama filan gacantiisa uu ka soo baxayo dib qalooc hayeyna uu yiri la kala gurigii Candice wiilkeeda si qarsooda uu soo galayso qolkiisana fiirfiirinaysan isaga inuu caaw fiican yahay kale sabrayse wiilkeedii uu qolka ku jirna hadana raayitaankeedana uu la soo gaaray gurigii oday mayor inay timaado waxaan arkaysaa Elliot uba odigan si xun u weeraray kuna eedeenaya odigan sidoo kale inuu yahay been low waxaan diinta u haystaana inay waxba ka jirin bartiina ayuu dhiigiisii oo qandiir ahba ku dilay subaxdii xigtana Candice wiilkeeda Elliot u deenaysa xalayto wala xageeba jirtay wuxuu jawaabay ma adonay islamaan kaasna Joel uu asana ka qaybgalayo aaskii loo sameeyay odigii mayaraha waliba kaligiis dhammaan dadkii ribaadiyahana diideenba inay odigaas u soo dhawaadaan maadaama diintooda iyo diintiisa dab iyo hola isku yihiin inta ka bacdina Candice oo intii dadkii ay gaalada ka dhigeen u jeedinaysay khudbad waxay ogaanaysaa arrin la yaab ku noqday ayada oo qof dadka dhex soo socda uu jiray ayadoo la yaabeedna waxa wixii wiilkii Elliot isheeda qabanayso isla markiina cunuga meesha ka orday hadana balse Candice ka meherayso oo way soo cayrsanaysaa waxayna arkaysaa kamal beenta isagoo dhex fadhiya kaniisadii markii uu soo dhawaatana mar qora wajigiisa uu isbedelayo intay ka cabsatana ku dhacday dhulka Elliotna kadib ka orday goobta tableed kadib say Candice soo kacday wadadiina kula kulmaysa hadana shaamankii waxayna ku arkaysaa saksaantii wiilkeeda uu lahaa waxayna weydiinaysaa xageebad ka keentay balse odigan uu ka codsanayo wiilkeeda ayaan u baahanahay sheekadu way ka sii daraysaa balse Candice ay ka diidayso dagabada labada lamaane isku qaylinayaan mid walbana wiilkooda dibkaasta uu ka sheekeynayay Joel weli uu sanaaminsaneen cunugaankooda inuu xanuunsan yahay sida ay xaaskiisa u maleynayso oo kale ayadana ku qaalinaysa waan lahayaa wiilkan waxba ku jiro waqti xadirkaas kaniisadii tac ka soo baxaya ay arkayaan waana ku soo orday dhinacaas inay damiyaan isku dayeen balse dabkii ka xoog badnaaday waxaana soo baxaysa kaniisadan qofka gubay uu yahay wiilkii Elliot ahaa habeenkii maalkaasna Candice wiilkeeda ku eedeynayso inuu mas'uul ka yahay qofka kaniisada gubay saatay uu diidayo welibana noo soo istaagay maba gelinba kaniisada saniyo inta ku arkay martaba sameeyay Joel uu sawaxan ka maqlay guriga dhexdiisa wuxuuna bilaabay inuu raadiyo xasalaas wiilkiisa Elliot hal mar hurdiisa inuu ka soo baxo cabsi uu ka qaadana taas baalkii uu neefta ku ceshan jiray maadaama uu qabay neef intuu la rafaaday taas Elliot uu soo weeraray dagaalkoodiina Candice ku soo kacayso waxaan arkaysaa ninkeeda oo dhaawac xunba loo geystay dhimashana ku agdhow subaxdii maalinkaasna Candice ay caruurtii wax bari jirtay weydiinayso Subay qof magaciisu yahay waddanka tuuladan aad uga xabsadaan balse gabadhii ay diinta ka bedelayeen Candice soo hor istaagayso oona ku eedeynaysa beelni ayaa tahay oo waxyaabahan aad noo keenteen waxba kama jiraan kama dambeyntiina Candice keentaba in laga bilaabo maanta ilmahan waxba aysan bari karin oo liiri gurigaada joog amaba u noqda magaalkiin xanaaq iyadoo aan maalinkaas dib ugu soo noqday gurigeeda muddo kadibna go'aan ku gaartay shaamankii inay u ogolaato wiilkeeda inuu la tacaalo iskana iloodo diinta ay aaminsan tahay hayda wiilkeedii wadana keentay gurigii shaamaanka Elliot siiradii u diiday inuu gudaha u galo saatay hooyadiisa ku qasbayso markeedii ugu horreysan ogaatay shaamaanka inuu ahayn mid reer dhiblow ah qofka daawada inuu sii u maleynaysana ee dareere ahayd waxbaysan ka jirin Subay qoftii laga cabsanaa ee ahaydna suuli ka tahay wax walba oo ku dhacay wiilkan jirkiisana ku jirtay iyadoona ku adeegato ama wax walba ay u baahan tahay ku qabsato waana sababtay dad badan ugu soo dishaba shaamankana si uu soo dhameeyo Subay sheekadeeda godkii dib ugu soo noqdeen wuxuuna bilaabaa sheekadiisii dulwarwareega daqiiqada kadibna Elliot oo isagoo wejigii Subay wata la soo baxay saate shaamakan uu howshiisa sii wadanayo iskana dhiga tiray cunugan luqadaha cusub ku hadlayay sigastabe shaamakan uu Candice laftarkeed ku qasbay inay cabto waxyaabo hadalkiisana intii qaadatay cabayso isla waqtigaasna loo daarayo muuqaalo kala duwan shaamankina dagaal kula jiro Subay balse ka xoog badan tahay muddo kadib gudkii jawiisa uu isbedelayo una muuqato Elliot Subayna ka dhex baxday waxay saddex gelisay isla shaamankii caawihiisina oo gacanta ku dilaya isaga iskuna day inuu ku soo noqdo sidii caadiga balse ku fashilan kama dambeyntiisa yiri uguma shaqaysanaysa Subay isagana qoorta iska gooyay mar kalena Subay ku dhex noqonaysa hadana Elliot isagoo kana dhaxadlayso oo Candice weydiinaysa haye balaayii aad aaminsanid awday hadda ma idin difaacdo saanase dhees waan ku baryaa waxaartan ku sameeyay wiilkankii hal mar ka dhaxbaysa ku dhaysa haye way waan golay ikin qof kale aan dhax galo Candice fikrad ku soo dhacayso gudkiina ka soo baxday wiil yaro barankiisa arrintii aragtay ku dhaysa soo baxshay ka yarayaan ku waxbaan ku soo tusaya gudkiina soo gelisay Subayna hada kadib qofkii ku adeega doonto cunugan uu noqday gudkiina qayli ka dhax yiriso Candice wiilkeedana kama dambeeyay ayagoo isku haystay firiyihiin ka soo baxsaday go'aanna ku gaaray laga bilaabo maanta meesha inayba sii joogeen wiligoodna aysan u soo noqonin halkaasna ayuu ku dhamaaday muuqaalka ma sanida hawshadaada